labada maamul ee Somaliland iyo Puntland waxay isdhaafsadeen maxaabiis. dhinaca Puntland 15 maxbuus oo reer Somaliland ay sii daayeen, halka dhinaca Somaliland iyaguna ay sii daayeen 12 maxbuus oo reer Puntland. marka xagga goob dagaalka, walaalnimada iyo derisnimada iyo Soomaalinimada laga eego, waa tilaabo wanaagsan oo dhinaca togan loo qaaday sii deynta maxaabiista ay sameeyeen labada dhinac Somaliland iyo Puntland. waxaase jira dhinaca kale oo siyaasadeed oo qasab ay tahay inay arrintan ay ka akhriso. Siciid Cabdulaahi Dani, hogaamiyaha maamulka Puntland, wuxuu dhawaan si ka duwan sidii hore uga hadlay arrimaha Somaliland, waliba 2 jeer oo kala duwan ayuu si togan uga hadlay arrimaha Somaliland. dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, isagoo carabaabay in labada maamul ee Puntland iyo Somaliland ay deris yihiin loona baahan yahay inay yeeshaan wada shaqayn dhow oo amniga horumarka ah. marka arrinta xadka laga hadlayo, Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu inkiray jiritaanka maamulka Khaatumo. labada dhinac ee Somaliland iyo Puntland waxay ka siman yihiin diidmada inuu dhexdooda ka abuurmo maamul cusub. sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro, hogaamiyaha Somaliland, wuxuu labada gacmood u dhiibtay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo ah mid uu Siciid Dani ka sugaa inay ka dhigto madaxweynaha Soomaaliya doorashada soo socota. marka arrimahan la isku geeyo, Siciid Cabdulaahi Dani wuxuu dhinaca reer waqooyiga u jeedaa fursad ay ka qayb qaadan karaan damaciisa xukunka filla Soomaaliya. reer waqooyiga waxay baarlamaanka Soomaaliya ku leeyihiin 57 xildhibaan oo labada aqal ah, waana miisaan culus, waxaana mar walba jira xiriir hoose oo ka dhexeeya xubnaha reer waqooyiga ee ku jira dowladda federaalka ee Soomaaliya. Siciid Dani wuxuu tuuray shabaq siyaasadeed, mana cadda wax uga soo dhici doona marka la gaaro codeynta doorashada madaxweynaha Soomaaliya, isagoo kalsooni fiican ku qaba inay nooca doorasho ee Soomaaliya ay noqon doonto mid dadban. haddaba sidee u aragtaa adiga?